bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacano wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada warbixin aan markaasi bartan kelmooyin miidiya idinkugu soo gudbin doono oo ku saabsan go-aan cusub oo ka soo baxay ururka xornimadoonka ONOLF oo markaasi ka dagaalamayay dowladdeegaanka soomaalida ama soomaali galbeed ama sida loo garan og yahay dhulka lagu magacaabo Ogaden region oo ka tirsan ama ay xoogga ku haysato dowladda Itoobiya. Haddaba ururka ONOLF ayaa waxa uu digniin ka soo saaray shidaalka dowladda Itoobiya ay ka qodayso dhulka dowladdeegaanka soomaalida, kaas oo muddooyinkii dambe si weyn warbaahinta u qabsaday isla markaana noqday hadalhaynta ugu badan ee warbaahinta Geeska Afrika iyo sidoo kale midda Soomaalida. Haddaba Dr. Abiy Ahmed oo dhowaan booqday magaalada Jigjiga iyo sidoo kale Goday halka laga baarayo shidaalka ama qodista shidaalka ay ka socotay dowladdeegaanka soomaalida ayaa waxa uu markaasi ka jeediyay khudbad uu markaasi kaga hadlayay shidaalka halkaasi laga soo saarayo. Dad badan oo Soomaaliya ayaa ka dhidhiyay shidaalka laga qodayo dhulka Soomaali galbeed, waxayna markaasi sheegeen in arrinkan uu yahay gaf iyo sidoo kale khiyaano markaasi lagu sameynayo ummadda Soomaaliyeed. Qaar badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed oo ku nool dowladdeegaanka Soomaalida, kuwa ka soo jeeda oo ku maqan qurbaha iyo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dhulka Soomaalida intiisa kale ayaa si weyn markaasi uga hor yimid go'aanka Dr. Abiy Ahmed uu ku doonayo ama Itoobiya ay ku doonayso inay shidaalka ka soo saarto dhulka Soomaalida. Haddaba maxaa markaasi go'aanka waqtigan ku soo aadiyay ururka ONOLF? Waxaa go'aanka waqtigan ku soo aadiyay dad badanna sida ay qabaan ay markaasi sheegayaan in Itoobiya ay go'aansatay inay soo saarto shidaalka, isla markaana shidaalka marka la qaybinayo Soomaalida ay ku yeeshaan wax ka yar 5% oo markaasi lagu sheegay inay tahay 2% inay Soomaalida heli doonaan faa'iidada shidaalka dhulkooda laga soo saaray, taasoo markaasi ay ku tilmaameen inay tahay gaf iyo meelka dhac weyn oo lagu boobayo hantida dhulka Soomaaliyeed. Haddaba intaynu gudagelin faahfaahinta warbixinteena, hadday tahay booqashadaadii ugu horreysay kusoo bir bartan oo subscribe saara gambaleelka furo, muuqaalkana like saar si uu meel dheer u gaaro. Like-tu waxay ka qayb qaadanaysaa in muuqaalka meel dheer uu gaaro. Dhinaca Facebook haddii aad nagala socotana kusoo bir barta Facebook oo follow soo dheh muuqaalkana like-tii sharta ha ka hilmaamin xagaaga. Itoobiya waxa ay ku dhaqaaqday bilowgii sanadkii aynu ka soo gudubnay ee 2024 iyo sidoo kale dabayaaqada sanadkii 2023 inay shidaal ka soo saarto dhulka Soomaali galbeed, iyada oo markaasi hadda waqtigan 2025 uu marayo gabagabo, isla markaana ila xogogaal ah oo aynu markaasi la xiriirnay kuna sugan deegaanka Soomaalida ay xaqiijiyeenba in shidaalka qaybtiisa la soo saaray goor horena lagu bilaabay in la dhoofiyo. Wararka qaar ayaa tibaaxaya in Itoobiya ay ku guuleysatay inay shidaal soo saarto isla markaana dhulka Soomaalida ay ka soo saarto, sidoo kalena ay markaasi u suuq geyso suuqyada caalamka. Dhowaan Itoobiya ra'iisul wasaaraheeda Abiy Ahmed ayaa socdaal ku tagay magaalada Jigjiga ee xarunta dowladdeegaanka Soomaalida, waxaana halkaasi uu kala kulmay madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya ninka lagu magacaabo Mustafa Cumar Cagshar, kaas oo isagu markaasi ka liita madaxdii hore u soo martay deegaanka sida ay qabaan dad badan oo Soomaaliyeed oo ku nool dowladdeegaanka Soomaalida. Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dowladdeegaanka Soomaalida ayaa waxa ay markaasi ku tilmaameen socdaalka Abiy Ahmed inuu ahaa mid markaasi dhoolatus ah, isla markaana dadka Soomaaliyeed lagu dareensiinayay in shidaalkoodii la soo saaray Itoobiyana ay suuq geynayso. Shidaalka laga soo saaray dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dhulka Soomaali galbeed ama Ogaden halka lagu magacaabo ay markaasi ku yeelan doonaan wax ka yar 5% oo ilaa markaasi la gaarsiinayo inay Soomaalidu helayaan 2%. Haddaba muuqalantaa in Soomaalida ay markaasi helaan shidaalka marka la qaybsado in 5% wax ka yar ay helaan. Marka la qiimeeyo inta badan nidaamka dowladaha ay ku dhisan yihiin ee federaalka ama qowmiyadaha ku saleysan, marka qowmiyad dhulkeeda laga helo shidaal waa in ay markaasi qowmiyadaasi iyo state-kaas u qaataa inta ugu badan kheyraadka dhulkaasi. Waxaa la rabay shidaalka dowladdeegaanka Soomaalida laga soo saaray in ugu yaraan Soomaalida ay ku yeeshaan ama ay qaataan 95%, halka 5% soo hartayna ee dowladda dhexe Itoobiya ay qaadato, iyadoona deegaanada kale ama markaasi qowmiyadaha kale aysan waxba ku lahayn shidaalka iyo kheyraadka laga soo saaray dhulka Soomaali galbeed. Laakiin taas beddelkeeda Itoobiya iyo ra'iisul wasaaraheeda waxay sameeyeen in Soomaalida ay siiyaan dakhliga ugu yar ama markaasi faa'iidada ugu yar ee shidaalka ka soo xaroota, halka inta kalena Itoobiyaanka kale ay qaateen. Dadka Soomaaliyeed waxa ka careysiya ayaa ah in Itoobiya ay qaadatay intii ugu badnayd faa'iidada shidaalka, halka intii ugu yareed oo aysan u qalminna Soomaalida loo qoondeeyay. Dhowaan
waxaa go'aankaasi si weyn markaasi u diidmay oo diidmo cad kala hor yimid ururka markaasi ONLF lagu magacaabo ama ururka ONLF, kaasoo isaga si cad markaasi u diiday gebi ahaanba in shidaalka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya markaasi la soo saaro waqtigan ama la suuq geeyo. wuxuuna ururku ku dhawaaqay inuu dib ugu laaban doono furimaha dagaalka haddii Itoobiya aysan ka waantoobin go'aankan isla markaana aan wada hadal dhaba laga galin. ururka gebi ahaanba isaga oo laba u qaybsan waxaa qayb ka mid ah oo dibadjooga ay gaashaanka u daruureen in markaasi xitaa wax wada hadala laga yeesho in la soo saaro shidaalka dhulka Soomaalida ku jira, waxayna taas ku sheegeen inay tahay in gebi ahaanba markaasi ay ka soo horjeedaan kheyraadkana uu yahay kheyraad Soomaaliyeed isla markaana Itoobiya aysan xaq u lahayn inay soo saarto ama ay suuq geyso. ururka ONLF waxa uu muddo markaasi ku jiray halgan gobonnimo doona, iyada oo halgankiisa ay murano badan hareeyeen, haddana waxa uu muddo markaasi duurka ugu jiray sidii dowlad deegaanka Soomaalida ama dhulka Soomaali galbeed uu u heli lahaa xornimo buuxda oo uu kaga madax bannaan yahay Itoobiya inteeda kale. muddo uu halgan ku jiray ururka waxa ugu dambeyn markaasi 2017 uu hubka dhigay gebi ahaanba kadib markii heshiis siyaasadeed ay la gaareen Abiy Ahmed oo waqtigaasi talada Itoobiya la wareegay. ururka ONLF ayaan waqtigan ahayn markaasi urur hubeysan oo duurka ku jira, laakiin waxay wacad ku mareen in ay duurka ku laaban doonaan isla markaana ay dib dagaalka markaasi u bilaabi doonaan. waxa la isweydiinayaa waqtigan ururka ONLF ma geli karaa dagaal halgan ah oo la mid ah kii uu muddo sanadaha ku soo jiray. Qobarrada dhanka militariga waxay qabaan in waqtigan ururka ONLF ay adag tahay in si la mid ah sidii sanado ka hor uu ahaa uu duurka ugu jiray uu u galo, maadaama gebi ahaanba uu hubkii dhigay isla markaana uu ku wareejiyay dowladda, ayna jirin waqtigan ciidan meel ku diyaarsan, ayna adag tahay in la diyaariyo ciidan awood leh oo lagu babac dhigo Itoobiya. laakiin dad kale ayaa qaba in waqtigan dadka Soomaaliyeed ee ku nool dhulka Soomaali galbeed ay u bisil yihiin halgan dhab ah oo daahfuran isla markaana ka maran qabyaalad, musuqmaasuq iyo sidoo kale ninjeclaysi. waxay qabaan haddii la helo shakhsiyaad iyo sidoo kale hoggaan dhaba oo u taagan qadiyadda Soomaali galbeed isla markaana diyaar u ah inay dhisaan urur gobonnimo doona oo ka maran qabyaaladda iyo wax la mid ah, inay fududahay in la helo dhalinyaro iyo sidoo kale halgamaayaal Soomaaliyeed oo ka soo jeeda deegaanka isla markaana qayb ka noqdo dagaalka gobonnimo doonka. haddaba adiga muuqaalkan daawanaya ma tahay waqtigan xilligii ugu habboonaa ee shacabka Soomaaliyeed ee dhulka Soomaali galbeed ay dib u bilaabi lahaayeen halganka maadaama la boobayo kheyraadka dhulkooda? aragtidaada qaybta commentiga nagula wadaag sida aad u aragto go'aanka iyo sidoo kale hanjabaadda ururka ONLF iyo sidoo kale marxaladda waqtigan ma tahay xilligii markaasi ay dib duurka ugu laaban lahaayeen oo ay halgan u bilaabi lahaayeen, mase tahay waqtigan suuragal in la helo dad Soomaaliyeed oo halgankaasi ka qayb qaata? mar kale ha ilmaamin inaad muuqaalkan like saarto si aad uga qayb qaadato faafinta muuqaalkan oo warbixintan ay u gaarto dad badan oo Soomaaliyeed.